ورحمة الله وبركاته كما قالوا مقالك إنه إجا ديرادو أيان ديديا ومقالك لبعض عن هالميل عن قدوة بيو ساسي لما دا وحان رواين عن كهدلو جرير أهان وحنوغو آدن صوماليا هيرشبيل أيان كهدلي دونا ميل كلنا ما آدي دونو أو دنك جرير نمدا وانت هيرشبيل إيجا كشي إيجا جرتا sidaan wada ognahay Soomaaliya waxa ka jiro isteediyo ayaa ka jiro federal markii loo yiraahdo dawladda dhexe waxa ay maamushaa isteeti soo yimaada dawladda federaalka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay branches waay dawladaha maamulo waay ayaan dhahaynaa saas la mid ah dawladda federaalka Soomaaliyeed waxay si buuxda u aqoonsan kartaa ama ay aqoonsi siin kartaa maamulada hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliyeed وأن هذا قلنا قانو معمول قبلياتيو دتكنا أي رهدان دولة ما هو معمول قبلياتيو ساس سلمة دولة الصومالية وحأي معمشة أو أوامر يوم هاي ترحم بحين يطلع أي سين كرتا دمان معمول قبلياتيو ده دلك كجرا سيد تشوبلان سيد بوتلان سيد كونفور قلبت سيد قل مدوك سيد هيرشبيل سيد قاتوم استد إيو بنادر أو عاصمة دلك الصومالية كنت على عمل لقى دحلايو haddii oo warkaas qaldamay banaadir micnaha waa caasimada gobolka Soomaaliyeed meesha ay ku taalo waay gobolka intaas aan lahaa ama gobolka banaadir baan ku dhaho waa gartay maamul goboleed waa asiga naftirkiisa gobolka banaadir sidaas si la mid ah dawladda Soomaaliyeed maamul aysan aqoonsaneen lama oran karo waa maamul waxa la oranayaa waa shufto doonaysa inay ayagu isbahaystaan dawladuna markaas rakaateeyaan macnaha dawladdu ay ku rakaateeyaan anaga meesheena saan waayo ku rakaateeyaan macnaha waa faanta amalena korkaatayaan ma faantay oo kaasa tusaale aanoo ka soo jeedo beesha qowmiyadda Eylo ama aanoo ka soo jeedo boqortooyada qowmiyadda Eylo hadii aan ciidan sameeysto hadda waaba ii sameeysan yihiin tusaale hadii ciidan aan sameeysto oo ciidankayga aan deegaan ku xoreysto oo ay shabaab joogaan ama shabaab la dagaalamo deegaankaasi wax aan awood u yeelan karaa inaan calan beeshayda ah aan ka taagto oo aan dhaho beeshayda ka talinayso calankan calan kale lagama aqoonsan karo saas daraadeeda waxa la aqoonsanayaa inaan ahayn nidaam ah qaado طريقة ومدنا دبعتينايو دولة الصوماليات نكسو هرجيدو بربوريناي sidaas ay lamida warku waa soo hoobinaya hadii beel Soomaaliyeed ay calan sameeysato oo ay tiraahdo anagu beeshaasana la yiraahdo calankaana leenahay maamul buuxdaana nahay hadii yiraahdaan Soomaaliya 40 iyo intaas oo qabiil ay ka kooban tahay qabiil walba waxa uu awood u leeyahay inuu calan sameeysto oo gobolka uu joogo oo ka taagto oo yiraahdo gobolka ana ka tali dawlad federaalka ma taliso saas daradeed qabiiladaas oo dhan waxaan oranayaa fikirkeyga waa qabiilo usub bahaystay inay dawladda federaalka Soomaaliyeed ay burburiyaan sidaas ay lamida dawladdu waxay awood u leedahay qof walba oo markaasi dawladda nidaamkeeda ka soo horjeesto inay weerar ku qaado la dagaasho burburiso nidaamkiisana ay ka taqalusto sidaas ay lamid ah dawladdu qof ay aqoonsan tahay hadii ay tusaale ay weerar ku qaadaan dad aan la aqoonsaneen dawladdu waxay awood u leedahay in dadkaas ay aqoonsan tahay ee garab ay siiso warku ay ugu dheeraado waa soo gabagabeynaya dawladdu tusaale waxay aqoonsan tahay dawlad goboleedka Hirshabelle ama maamulka Hirshabelle ee uu hogaaminayo Cali Cabdullaahi Xuseen loo garan og Cali Guudlaabe tusaale Cali Guudlaabe maamulka uu hogaamiyo oo dawladda federaalka Soomaaliyeed aqoonsi ay ka haysto ama dawladdu ay aqoonsan tahay hadii beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed ay calan sameystaan ay yiraahdaan anagu sidaana nala dhahaa ay dhahaan oo dawladdiina aysan aqoonsaneen maamulka Cali Guudlaabana oosan aqoonsaneen dawladdu waxay awood u leedahay inay Cali Guudlaaba garab siiso oo maamulkaas meesha jira ka taqalusto sidaas ay lamid ah dawladdu waxa ay awood u leedahay inay warqad soo saarto oo tiraahdo anagu maamulkaasana aqoonsanahay maamulkaasana meeshaas noogu shaqeeyo beelna Soomaaliya ma matali karto Soomaaliya waa dad isu imaaday qowmiyada ah hal beel lama matasho waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne u ah inta kale ka hooseysana waa awood qaybsi qabeeleed inkastoo annaga beelaha jiriirta ah markaan nahay dawladda federaalka Soomaaliyeed aanan xuquuq ku haysanin kuna dulmanahay runtan ku sheegaya ma garat waa gartay laakiin ujeedka annaga jariir ahaanteena iyo sharci ahaanteena iyo waxa noo sharciyeysan oo annaga na dul saarana waxay tahay inaan qaadano Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri adiicu Allah wa adiicu rasuul wa ila ulil amri minkum waxaan adeecayna Allah subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa Muhammad alayhi afdalus salatu wa salaam waxaan markaasi la shaqeynayna maamulka jira ee marka meeshaas ka shaqeeya hadii aan jariirnahay Cali Guudlaabe ayaan aqoonsanahay oo aan la shaqeynayna hadii aan jariirnahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaan aqoonsanahay oo aan la shaqeynayna hadii aan jariirnahay Galmudug State Koonfur Galbeed State oo Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta garan oo hogaaminayo ayaan aqoonsanahay oo aan la shaqeynayna dad kale ama shafto kale oo beeleed ma aqoonsanin mana la shaqeyn karno sidaas ay lamid ah warkayga waa soo daadejinayaa wali
beelaha dhahaya annaga waxaan nahay beel oo state aan nahay beel state ma noqoto federal ayaa state noqdo si deegaankaasi loogu wada shaqeeyo midnimada deegaankana loo hormariyo dawladda dhexana looga helo caawinaadii iyo qaababkii markaasi ay mashaariicda dawladnimo iyo horumarineed ay ugu shaqeyn lahayd statekaas ayaa laga rabaa ee dawladda aqoonsan tahay inuu meeshaas ka shaqeeyo jareer haddaan nahay waa ka halkaas aan ku sameeyaa warkayga waa iga dheeraaday sorry cafwan wax badan inaad ka fahanteen waa rajaynayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aan ku kulmi doono muuqaal sidaan oo kale ah bye bye